muuqaalkeena maanta waxaan ka hadli doonaa sidee uu qofka noloshiisa u baabi'in karaa si noloshaada u baabi'iso ama aad u noqoto qof nolosha ka dhaca marka koowaad ha yeelanin wax hadaf ah iska ilaali hadafyaasha iyo yoolasha noloshaada yeesan yeelan wax ximilo ah oo aad hiisanayso iska noolaawun sidoo kale waxaa samaysaa waqtigaaga ha maamulan waqtigaaga sidaa doonta ugu dhaqan habeenkii xilliga doonta seexo habeenada qaar iska gaar salaada subax habeenada qaar labada habeenimo seexo subaxdan xilliga doonta soo kac alarm ku buuxsan mobilka just markay ku qabato hurdada ka soo kac sidoo kale si noloshaada u baabi'iso waxaa kaloo samayn kartaa inaad iska ilaaliso waxyaabaha riskiga ku keenaya noloshaada ha isku dayin wax cusub inaad samaysid challengeska iyo dhibaatada iska ilaali adigu maxaa ku dhibaya tartiibko waxaa doonta samee challenges iska ilaali because waxaa laga yaabaa mararka qaar in wax risk kale intaad samayso aad horumar ku gaarto markaad doonaysid inaad noloshaada baabi'iso aad isla goyso weligaaba iska ilaali riski inaad qaadato sidoo kale markaad doonaysid noloshaada inaad baabi'iso waxyaabaha samayn karto waxaa ka mid ah in aadan noloshaada u sameynin priorities okay wax kastoo kaa hor yimaada qabo haddii maanta howl muhiima u socotid oo wax kale lagu sheego iska joojitaa just shaqada kale qabo marka priority-gu maaha wax wanaagsan iska daa just wixii adiga markaa maskaxdaada ay kuu sheegtay kula fiican u qabo sidoo kale markaad doonaysid noloshaada inaad ku ciyaarto oo baabi'iso iska ilaali weliga waxbarashada wax cusub ha baranin okay waxbarashadu waa caajis inaad buug akhris waa ku caajisaysaa taa waxaa ka dhow inaad mobilka iska daawato oo scrolling iska samayso 8 saacadood 10 saacadood maalintii mobilka inaad ku bixiso mar TikTok aad isticmaasho mar Facebook aad isticmaasho mar Instagram aad iska duubto mar YouTube aad daawato marka waxbarashada sidoo boring way waqtiga ka luminaysa marka aad isku dayn inaad baratid sidoo kale ma u baahnid inaad xirfad barato okay marka doonaysid noloshaada inaad baabi'iso xirfad ma u baahnid inaad barato sababtoo xirfadaha waqtiga bay ka luminayaan barashadooda waxaa laga yaabaa maalintii 2 saacadood inaad kugu qaato inaad xirfad cusub baratid oo diyaarisid marka 2 saacadood haddii aad xirfad barasho ku bixisid yaa kuu tagaya fadhi ku dirarka yaa kuu fadhiisanaya maqaahyadaha yaa difaacaya siyaasiga reerkiina ka dhashay ee aanan ku garanin xataa inaad nooshahay in kale marka waxaa u baahan tahay in aad siyaasiga difaacdo oo aad fadhi ku dirarka fadhiisato inta aad xirfad cusub baran lahayd sidoo kale markaad doonaysid noloshaada inaad baabi'iso wax shaqo ah raadinin okay sidaan la socono waddankeena wuxuu ka mid yahay wadamada ugu liita adduunka ee dhaqaale ahaan marka waddankeena shaqo ma laha marka waa iska calaacal meelaha ka qaylqayl waxaa tidhaahaa waddankeena shaqo ma lahan shaqo cid siinaysa ma laha marka adigu ha bixin un okay magaalada ha tegin shaqaha raadin sidoo kale shaqooyinka qaar ee liitan ha qaban sababtoo adigu waxaa qof sharaf leh waxaa u baahan tahay shaqada aad qabanaysa inay noqoto shaqo xafiis weyn ah fadhido oo secretary ah leedahay marka waddankan waad ogtahay shaqo la'aan baa ka jirta marka calaacalka un wad meelaha kusoo qorqor shaqo la'aan baa jirta maxaan qabanaa lacag la'aan baan haysa shiid baa jira meelaha ka dhadhay marka ha isdhibin adiga ma u baahan shaqo inaad qabatid sababtoo waxaad doonaysaa noloshaada inaad baabi'iso soo ma fikradda yar ee maskaxdaada ku jirta ee aad ganacsi fiican ka samayn kartid ha isku dhibin inaad ka shaqaysid sababtoo fikraddaas aad u samaysid waxaa u baahan tahay lacag okay lacagna ma haysid sababtoo ah maalmo yar ka hor baad mobile iPhone $1,000 kusoo iibsatay marka fikradda lacag ku dhaqaajis ma leh maalgelin cid ku siinaysa ma leh marka fikraddaada maskaxdaada kugu jirto marka meeshaas uu ku hayso ilaa markii dambe aragtay fikraddaada qof kale oo marka dhiiran uu ka shaqeeyo marka adoor waxaad doonaysaa noloshaada inaad baabi'iso ku ciyaarto marka fikradahaaga waxaaga maskaxdaada kugu jiraan waxba ha is dhibin sidoo kale markaad doonaysid noloshaada inaad baabi'iso iska ilaali waxyaabaha wanaagsan inaad la socotid tusaale inaad page-keena soo follow garaysid oo kale ama YouTube-keena subscribe-ka saartid oo kale ama videodan soo dhigin inaad daawato oo kale because kuwa waxay keenayaan noloshaada inay marka horumar kusoo kordhiyaan marka muuqaalkeenan kaga hadlaynay sidee uu qofka noloshiisa u baabi'in karaa halkaas baan kusoo joojinaynaa marka ayobna ka faa'iidaystay muuqaalkeena aad baa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh